xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta Jimciyatul Ahbaab ayaa maanta soo kormeeray dhismaha cisbitaal lagu dhisayo qaab tabarucaad ah kaasi oo laga hirgelinayo deegaanka Labisagaalo oo ka tirsan degmada Sabawanaag. sidoo kale xubnaha dhakhaatiirta ah waxa ay dadka deegaankaasi ku dhaqan ay u sameeyeen daaweyn lacag la'aan ah oo ay u fidiyeen in ka badan 350 qof oo isugu jira caruur, dumar iyo waayeel baahi weyn u qabay daryeel caafimaad. xubnahan dhakhaatiirta ah iyo mas'uuliyiinta Jimciyatul Ahbaab markii ay gaadheen isla cisbitaalkaasi waxa uu horeyn faahfaahin ka bixiyay halka uu maraya dhismaha cisbitaalkani gudoomiyaha Jimciyatul Ahbaab ee degmada Sabawanaag Sheekh Maxamed Axmed. dhakhtarkan al-awwal deegaankaas ayaa iska bilaabay neef ariya ayay isu geeyeen baahi ay u qabo caafimaad darro aawadeed. intaa ka dambow nin kasta oo wax naga caawiya wuxuu naga caawiyaba sidii aan ugu daraynay halkaas aanu gaarsiin. ta kale waxaanu fariin u diraynaa dadweynaha islaamka oo dhan wax alla wixii ummadda jilicsanee maalin walba halkaa ku dhiigbaxaysa wax alla wixii danaynayee ka damqanaya baanu fariin u diraynaa. waxaanu leenahay walaalayaal halkaa neef ariyaanu ku soo gaarsiinaye neef ariya kama liidataane sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadallo kala duwan oo gubaabo iyo dhiirigelina ka jeediyey Dr. Ismaaciil Aadan Macallin Gahayr iyo Dr. Maxamuud Cagaweyne iyo Sheekh Khadar Sheekh Siciid Aw Nuur. waxaanu keenayo kale wuxuugaa dawaa annagu dawadan markii aanu intan soo qaadaynay ujeedadeedu runtii waxay ahayd inaanu horta bal meesha soo eegno halkay marayso iyo waxa ka dhiman. إن شاء الله تعالى مالمها دنبنا وحن جعلنا وقت كلا صار نقولنا دوين إنت كبرنا نودين كأنه وحنا نجعلها هنا نصيدا إذا كون قرب تاجنانه هير اللي بس قالوا إذا كون قليل دسيهين هدي كرتين أصبح لساتين أو أنت لسمعنا عرفنا ما أنت يعني صار عرفنا لساتين وحلا هاي وحكوا قاعدين بدنمو وحكوا قاعدين هذا اسمخل وحكوا قاعدين إن نفكنا عليها هير اللي بس قالوا بدي ناس وذا شركينا سكترشقي ناس حركة كسي وضع waxaan ugu baaqayaa dadweynaha deegaankan u dhashay dhakhtarkani maanta qabiyada ka yahay ee uu ka socdo ee magaalada Labisagaala ee degmada Sabawanaag in hadday dawlad tahay iyo hadday shicib tahayba iyo dadkii dar Ilaahay wuxuu ku darsanayaba horta in xil weyn la iska saaro. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Jimciyatul Ahbaab Sayid Maxamed Sayid Cabdullaahi Xaaji Cilmi Nuur oo isagu abaabulkeeda lahaa howlgalkan daaweynta ah ee lagu tagay degmada Sabawanaag. wuxuu ahaan ugu siiyaan wixii ay barteen iyo wixii ay u karkaraan dawo iyo talaba waa u mahadnaqaynaa cid kasta oo ka soo qayb gashay wax ka qabadka xaruntan caafimaadka ee fadhino ee taaganahay markay Labisagaala wayna u mahadnaqaynaa reer miyigu iyaga intay neefafkoodii soo ururiyeen meeshan ka bilaabay hawshan waxaana ugu talagaleen inay naftooda wax ku taraan tusaale ahaan laakiin wixii taalkooda way qabteen dadka kale waxa looga baahan yahay wixii ay ku tarayaan ay ku soo taraan. sidoo kale waxa iyaguna hadallo kala duwan halkaasi ka jeediyay cuqaal odayaal iyo waxgarad waxayna dhamaantood u mahadnaqeen xubnahan ka tirsan ururka dhakhaatiirta Soomaaliland iyo Jimciyatul Ahbaab. Maxamed Jiciiro Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale TV qaranka Soomaaliland deegaanka Labisagaala degmada Sabawanaag.